wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa jaaliyada reer Sheffield kala wareegay lacag dhan 3795 oo ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha wadada Ceerigaabo. jaaliyada reer Sheffield oo inta badan ka qayb qaadata horumarka dalka ayaa hore lacag gaadhaysa $65,526 ku wareejisay dhismaha wadada Ceerigaabo. gudoomiyaha gudida qaaran ururinta ee jaaliyada reer Sheffield Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Gees ayaa ka waramay lacagtani iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan dhismaha wadada Ceerigaabo. anigoo Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed ahna gudoomiyaha gudida Sheffield ee lacag ururinta wadada Ceerigaabo waxaan ku wareejinayaa wasiirka madaxtooyada ahna gudoomiyaha isna wadada Ceerigaabo gudida guud lacag dhan 3794 halkana imika uu kaga biiray $1 karo 95 maraysa yani ma ku wareejinaya lacagtii hore aan soo dirayna waxay ahayd 65,526 intana waa laga daba geynayaa marka gudoon wanaagsan wasiirka waliga ku wareejiya lacagtii. wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa u mahadnaqay jaaliyada reer Sheffield sida ay diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan wadada Ceerigaabo isla markaana ay jaaliyadihii kale uga soo horeeyeen. waad ku mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Mujaahid Cabdiraxmaan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa dadkii soo bixiyay iyo adigoo ku soo dadaalay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala abaalkeeda ka siiyo janno iyo xasanaad iyo ku bedelo. lacagtan Sheffield waa lacagtii shanaad ee laga soo gaadha Sheffield way dadaaleen dadka waxay dheer yihiin dadaalka runtii iyadoo in badan laga dadaalay dadka waxay dheer yihiin dadaalka aan markii la joojin lacagtoodu gudigu yani markii la lacagta kala goynin gudiga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhamaanteed odayaashii iyo dadkii sharafka ahaa ee reer Sheffield haweenkii dhamaantood oo mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa. xildhibaan Mubaarak Bidhi iyo xildhibaan Siciid Raago oo goobtaasi ku sugnaa ayaa iyaguna uga mahadnaqay jaaliyada reer Sheffield sida ay uga qayb qaadanayaan dhismaha dalka haday tahay wadooyinka iyo arrimaha bulshadaba. si kastaba haatee jaaliyada reer Sheffield ayaa dadaal xoogan ka muujiyay dhinacyo tiro badan oo ay ka mid yihiin aqoonsigii golaha deegaanka ee Sheffield ee aqoonsatay Soomaaliland iyo sidoo kale wadada Ceerigaabo. jaaliyadan ayaa sidoo kale waxaa lagu xasuustaa qaybtii laxaad kale ahayd ay ka geysteen cusbitaalka dhimirka ee magaalada Burco. Shaafici Maxamed Ibraahim wararka Soomaalida magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.